كتوهنسن ومالي بات حمر يارو انت انا الديب وانت رنسن انت رب السين ورهو يتمر لفاف وكرتا akhyaarta sharafta iyo karaamada lahu ku soo dhawaada barnaamijkeennii dalka iyo dunida oo aan toddobaadkan ku eegayno nidaamka wadareynta xisbiyada EPRDF iyo ururada bahwadaagta ah Somali baad xamar yaaro intaana dib weyn tarankan anta rabbusiin warhooy timir la ku jirta xisbiga talada dalka Itoobiya haye ee EPRDF oo khibrad siyaasadeed ka dhaxlay wadamada beesha caalamka ayaa waxa muddo dheer oo 30 sano ku dhow hogaaminayay ururo siyaasadeed oo aad u tiro yar haddaba xisbiga EPRDF ayaa waxa xubna ka ahaa ama ka tirsanaa ururada siyaasadda ee TPLF ADP ODP iyo SEPDM halka ay xisbiyada deegaanada Soomaalida ee SDP Bilishaangul Gumuz Hararida Cafarta iyo Gambelana ay bahwada ka ahaayeen siyaasadda iyo hogaaminta talada dalka Itoobiya dhanka kale xogaha daraasaadiyada ayaa sheegaya in ay xal tahay isla markaana la door biday in halganka siyaasadeed ee isbahaysiga EPRDF loo bedelo hal xisbi oo qoomiyadaha dalku u siman yihiin si nidaamka hogaamineed ee wadanku u noqdo mid wanaagsan oo loo dhan yahay haddaba su'aasha in ka badan 18 sano soo jiitamisay ayaa ahayd yaahun yaagarochachu እና ከናንተም ጋር ይህ ግንኙነት እንዲጠነክር ምናቀርበው አንድ ጥያቄ ምንድነው በሚቀጥለው የመጀመሪያ የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ አጀንዳችሁ ላይ የዚህ ያጋሮችን ጥያቄ እንድትጨምሩ እንጠይቃችኋለን anigu waxaan doonayaa in aan idin xusuusiyo si xiriirka bahwadaagtiina iyo idinka loo sii xoojiyo su'aashaydu waa in aad shirweynihiina ugu soo horeeya ee soo socda ee golaha EPRDF aad ajendayaashiina ku soo dartaan su'aasha xisbiyada bahwadaagta ayaan idinka codsanaynaa አጋር ድርጅቶቻችን ኢህአዴግን ሊቀላቀሉ የማይችሉበት አንድ መሰረታዊ ምክንያት አለ እነዚህ አጋር ድርጅቶች የሚሰሩባቸው ህብረተሰቦች በአብዛኛው አርብቶ አደር አካባቢዎች ናቸው የአርብቶ አደር አካባቢዎች ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ለአብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚሆን ማህበራዊ መሰረት የለም xisbiyada bahwadaagta sabab asaasiya oo ayna EPRDF ugu soo darsami karin ayaa jirta bulshada iyo goobaha ay xisbiyada bahwadaagtu ka hawlgalaan badana waa xoolo dhaqato marka deegaanada xisbiyada bahwadaagta iyadoo xoolo dhaqatanimadooda lala xiriirinayo ayayna lahayn habnololeed dimuqraadiyadda tawriga ku haboon meel uuna habnololeed ka jirina in uu xisbi dimuqraadiyadda tawriga haysta ka jiri doono ma qiyaasi karo ilaa inta deegaanadana habnololeed laga abuurayana bahwadaag mooyee xisbi dimuqraadiyadda tawriga kamida kama jiri doono siyaasiyiinta dalka ayaa sidoo kale aaminsan in ay su'aashani ka sokowta koorida bahwadaagta lagu sameeyay ay haddana tahay su'aal xisbiyada bahwadaagta ku leeyihiin waxaan dibadda nalaga istaajiyay go'aanada iyo hawlaha asaasiga ee dalkayga አጋር ድርጅቶች በተለይ አምስቱን ስናይ አንደኛ ቢያንስ መሪ መሆን እንኳን አይችሉም ጠቅላይ ሚኒስትር መመረጥ አይችሉም መመረጥ ብቻ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትራቸውን መምረጥም ጭምር markaan eegno xaaladda ay shanta xisbi ee bahwadaagta ku sugan yihiin marka koowaad hogaamiye ma noqon karaan waayo ra'iisul wasaare lagama dooran karin iska daa in ra'iisul wasaare laga doortay xitaa ra'iisul wasaaraha wadankooda mayna dooran karin ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ላይ የሚወስነው አራት ብሔራዊ ድርጅት ወይም አራት ክልል ልንለው የምንችለው አይነት ቅርጽ የያዘ አደረጃጀት ነው waxaa jiray qaab dhismeed ay afar xisbi ama afar deegaan kaliya Itoobiya iyo arrimaha Itoobiyaanka ku go'aaminayaan kuwa kalena la takooray oo magac ahaan dimuqraadiyad la iska leeyahay kuwa kalena aan laga qayb gelinayn ayuu xaalku ahaa bila ka qaybgalna dimuqraadiyad ma jiri karto marka in ka qaybgalka meesha laga saaro xaaladaha Itoobiyana laga warramo munaasib ma aha sidoo kale hogaaminta xisbiyada ku bahoobay ururka EPRDF ayaa muddo dheer shirweynayaashii isbahaysiga EPRDF ka soo jeediyay goorma ayaa la saxayaa nidaamka xisbiyada shanta dawlad deegaan hogaamiye ku takoorayo iyadoo qaar ka mid ah hogaamintii hore ee ururka TPLF ay aaminsanayeen in xad loo yeelo
nidaamka shanta xisbi ee bahawadaagta lagu takoorayo. አጋር ድርጅቶች ጋር አጋርነት የሚለውስ እስከ መቼ ድረስ ነው? ኢህአዴግን ወደ ውሁድ ፓርቲ የማሸጋገሩ ጉዳይ ማን ያንሳው? xisbiyada bahawadaagtu ilaa goorma ayay bahawadagnimo ku sii jirayaan in EPRDF xisbi isku dhafa loo gudbiyose ayaa soo qaada. laakiin arrintani 22 sano ayaan ku soo jirnay. xisbiyada aan hadda hoosta bahawadagnimo ugu haysanana in barnaamijyada ay EPRDF ku dhaqanto isbedelaan baa suurtagala, waxaana jira waxyaabo badan oo xal ah. ኢህአዴግ አንድ ወጥ ፓርቲ የመሆኑን አቅጣጫ ከዚህ በፊት በኢህአዴግ ስብሰባዎች አቋም የተወሰደበት ጉዳይ ሲሆን ወቅቱ ሲደርስ እንደሚፈጸም ነበር የተቀመጠው። ቺሆይንከ EPRDF ሎጋ ዲጋያ hal xisbi oo nidaam toosan leh shirarkii hore ee xisbiga ayaan ku dejinay in marka uu xilligeedu gaaro la xaliyo. dhanka kale xisbiga isbahaysiga EPRDF ayaa sanad ka hor qorsheeyay in isbedelka guud ee dalka ka hana qaaday ee uu Dr. Abiy Ahmed hormuudka ka yahay lagu soo daro sidii EPRDF loogu bedeli lahaa xisbi guud oo ay qoomiyadaha deegaanada dalku u dhan yihiin. እዚህ በኋላ ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት በአጭር ጊዜ በማጠናቀቅ ኢህአዴግ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጎች ድርጅት መሆን እንዲችልና አመራር ወይም ሊቀመንበር የመሆን መብት እያንዳንዱ ዜጋ እንዲኖረው ከዚያም አልፎ በኢህአዴግ መሪነት የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆን እድሉን እንዲጎናጸፍ ይህ ጉባኤ የተለየ አቅጣጫ ያስቀምጣል ተብሎ ይጠበቃል። hadda kadib iyadoo arrintan fiiro gaar ah la siinayo oo daraasaadka muddo gaaban gudaheed lagu dhammaystirayo ayaa si ay EPRDF u noqoto xisbi ay muwaadiniinta Itoobiya oo idil u dhan yihiin, muwaadin walbana uu u helo xaquuq uu EPRDF hogaamin ama gudoomiye uga noqon karo. waxaana intaas sii dheer si uu muwaadin walba isagoo xisbiga dalka hogaamiye ee EPRDF ka tirsan uu u helo fursad uu dalkiisa ra'iisul wasaare uga noqon karo, ayaa la filayaa in shirweynahan jihooyin gaar ah lagu soo saaro. waxaa iyaduna xusid mudan in laga bilaabo xilligii uu Dr. Abiy Ahmed qorshahan shaaca ka qaaday uu deegaanka Soomaalida markii ugu horeysay hadafkan taageeray ilaa haddana garab taagan yahay. እና አጋር ድርጅቶችም ከምን ጊዜውም በላይ የእናንተን ወደኛ መቀላቀል እኛም እንፈልገው አጋር ድርጅቶችም ምርጥ መሪዎች ወደፊት ማምጣት ተጀምሩበት። marka annagu waxaan doonaynaa in ay xisbiyada bahawadaagta xisbigeena ku soo darsamaan. xisbiyada bahawadaagtuna waxay bilaabeen in ay hogaamintooda wanaagsan horay soo safaan, maadaama ay shaqooyin ballaaran ka wadaan sidii ay u xaqiijin lahaayeen arrimaha shuruucdana. waxaa si buuxda u aaminsanahay in aan wadajir u halgano oo aad idinkuna madax naga noqotaan oo aad gudoomiye noo noqotaan isla markaana aad idinku na hogaamisaan. inaan doonayno ayaa anigoo fursadan ka faa'iideysanaya doonaya inaan idin xaqiijiyo. labadan qaadayno ninkii turunture magan maatida ku dhici doonta taasina isweydiine. haddaba madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbiga dimuqraadiga Soomaalida mudane Mustafa Maxamed oo warbaahinta Fana Broadcasting Corporate u waramayay ayaa sheegay si aan ra'iisul wasaaraha Itoobiya u noqono in ay khasab tahay in aan xubin ka noqono isbahaysiga EPRDF. mudane Mustafa ayaa tilmaamay in ay muhiim tahay in lala halgamo hadafka siyaasadeed ee ay afarta xisbi ee ODP, TPLF, SEBDM iyo ADP dalka ku hogaaminayeen, isla markaana ay xaaladani dhalisay in ay hal wadan ka jirto laba muwaadin oo kala duwan. ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት የኢህአዴግ አባል ነበር እስከ ዛሬ 27 ዓመት መሆን ያለበት which means institutionally የኢህአዴግ አባል አራቱ ክልሎች ያልሆነ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኤክስክሉድድ ነበር ከዚህ ፕሮሰስ። inaad wadanka ra'iisul wasaare ka noqotid ilaa hadda waxay ku xirnayd inaad EPRDF xubin ka noqotid. taasina waxay ka dhigan tahay in muwaadin walba
oo aan 4 urur ee EPRDF ka mid ahayn uu bannaanka ka yahay siyaasadda taasina waxay keentay in hal wadan ay laba muwaadin ka jiraan sidoo kale nidaamka isku dhafka EPRDF ayaa la filayaa inuu ka jawaabo hanaanka hogaamineed ee qowmiyadaha kaliya salka ku haya mudane Mustafa Maxamed Umar oo tilmaamay in ayna EPRDF xurriyadda afkaarta iyo aragtida horay uga jirin ayaa sheegay in loo baahan yahay ka sokow aragtida qowmiyadeed wadanka laga hirgeliyo midnimada aragtida isla markaana go'aanada dalka lagu saleeyo xurriyadda aragtiyaha kala duwan ሰዎችን አንድ የሚያደርገው ዘራቸው ብቻ አይደለም ሐሳባቸው አንድ የሚያደርጋቸው ሰዎች አሉ dadka waxa mideeya jinsigooda kaliya ma ahee waa afkaartooda waxa laga yaabaa in ay jiraan dad aad isku qowmiyad yihiin oo iidan is arki karin iyo dad iidan isku jinsi ahayn oo aad hal aragti siyaasadeed leedihiin sida darteed midnimada maadaama ay tahay inaan qowmiyad kaliya lagu salayn itoobiyaanka isku aragtida ah oo dhan hal xisbi way samaysan karaan iyadoo la eegayo doorka afkaarta halka ay leedahay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbiga SDP mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa tilmaamay in jihooyinka lagu dhisay xisbiga guud ay si cad uga jawaabayaan hadafkan sida uu ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed fagaarayaal badan ka sheegayna xisbiga cusub ee ururka isbahaysiga EPRDF lagu bedelayo ayaa noqonaya mid qowmiyadaha dalka si siman oo cadaalad ah looga qayb geliyo sidoo kale madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar oo sheegay in uu aaminsan yahay inuu nidaamkani soo dhaweynayo xurriyadda afkaarta ayaa cadeeyay in daraasadyada lagu sameeyay geedi socodka xisbiga isku dhafka ee EPRDF si ballaaran looga arrinsan doono isla markaana iyadoo danta guud la eegayo la hirgelin doono geeska kale inkastoo inta badan shacabweynaha Itoobiya ay qorshaha EPRDF halka xisbi oo loo dhan yahay loogu bedelayo taageersan yihiin ayaa haddana sida ay nimco walba nusqaanteeda u wadato waxaa jira xoogag siyaasadeed oo hadafka isbahaysiga EPRDF halka xisbi loogu bedelayo ka soo horjeeda iyadoo mid ka mid ah qodobada ay ku doodayaan yahay nidaamkani ujeedada qas iyo burburin buu xambaarsan yahay ወለመጨፍለቅ የሚወስደን አዝማሚያም ያለ አይመስለኝም ምክንያቱም ሁሉም ክልል በፌደራሊዝም ስርዓቱ የራሱ የሆነ aragtida burburineed inay jiri karto anigu uma malaynayo waayo deegaan walba wuxuu leeyahay awood uu nidaamka federalismku siiyay isagoo waxyaabo kala duwan qabanaya dawladda federaalkuna caawinayso in xoogaga isbedeleed kor loo soo qaado mooyee in ay aragti qas iyo burburineed keenayso anigu ma qabo geeska kale madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida oo carabka ku adkeeyay in hawlaha ururka EPRDF xisbi loo dhan yahay loogu bedelayo ay gaar ahaan damaanad u yihiin ilaalinta xuquuqda la xadiday ee ummadaha xisbiyada bahawadaagta loo oran jiray iyadoo uu shirkii aadka loo sugayay ee golaha fulinta xisbiga EPRDF uu muddo dheer kadib dhawaan qabsoomay isla markaana lagu ansixiyay in 5 xisbi ee bahawadaagta loogu yeedhi jiray ay ka mid noqdaan isbahaysiga xisbiga EPRDF waxaana arrintan si qoto dheer uga warbixiyay mudane Faqaadu Tasama oo ah xubin ka tirsan guddiga fulinta ee xisbiga EPRDF isagoo sheegay in ay guddiga fulintu aad u falanqeeyeen qodobada ugu muhiimsanaa ee daraasaadka lagu sameeyay nidaamka xisbiga la isugu darayo mudane Faqaadu ayaa sheegay in ay goluhu aad u lafagureen si xoojinta nidaamka kala duwanaanshaha federalismka iyo adkeynta awoodda ismaamuleed ee dawlad deegaanada dalka sidoo kale mudane Faqaadu ayaa cadeeyay in shirkan golaha looga doodayay in nidaamka wadareynta xisbiyada lagu soo daro
awaamiir ilaalinaysa ka qaybgalka cadaaladda ku salaysan ee wakiilada dhammaan qoomiyadaha iyo shucuubta kala duwan ku yeelanayaan xisbiga EPRDF. Fakaadu Tasama oo ah xubin ka tirsan guddiga fulinta ee EPRDF ayaa tilmaamay inay guddigu nidaamkan wadaraynta xisbiyada cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen halka ay 6 shakhsi oo kaliya ka soo horjeesteen. Fakaadu ayaa sheegay in xilliyadii hore uu xisbiga EPRDF wax u go'aamin jiray xisbiyada bahwadaagta loogu yeeri jiray, taasna ayna sii jiri doonin. dhanka kale afhayeenka EPRDF Fakaadu Tasama ayaa tilmaamay in nidaamka isku dhafku uu deegaanada xisbiyada bahwadaagta ka hirgelinayo nidaamka federalismka dhabta isagoo ka reebi doona in ay EPRDF wax fargelina ku samayso ama ay deegaanada wakiilkooda ku hogaamiso. Mas'uulka ayaa sheegay in khibrad wadaagyada laga soo qaatay wadamada nidaamka federalismka sida fiican u hirgeliyay oo arrintan si cad u qeexayo. dhanka kale mudane Fakaadu Tasama ayaa sheegay in uu xisbiga loo dhan yahay yeelan doono in ka badan hal luqad shaqo isla markaana ay arrintan luqadaha goluhu ka tashan doonaan. mudane Fakaadu oo sheegay in ay jireen xubno ka tirsan ururada isbahaysiga EPRDF oo muddo dheer nidaamka isku dhafka xisbiyada u doodayay ayaa sheegay in ay sidoo kalena ay jireen xubno aad uga soo horjeeday wadaraynta iyagoo danahooda gaarka wata. wuxuuna yiri መዋሃድ አስፈላጊ አይደለም ብሎ የሚያመነሱ ወገኖች በሚያስገርም መልኩ shakhsiyada uu isbedelka dalku danahooda gaarka ka taabtay ayaa nidaamka wadaraynta xisbiyada xoga been ah iyo kuwa aan macquul ahayn ka fidinaya waana la filayay. mas'uulka ayaa cadeeyay in xisbiga SEPDM oo ka kooban in ka badan 22 urur uu hirgeliyay nidaamka midnimada iyo kala duwanaanshaha qoomiyadaha, taasina ay tusaale inoogu filan tahay. Fakaadu Tasama ayaa cadeeyay in ay guddigu maalmaha soo socdaan ka doodayaan barnaamijyada siyaasadeed ee xisbiga loo dhan yahay ee EPRDF lagu hogaamin doono. akhyaarta nala socotay inta waxaa noogu eeg barnaamijkeeni dalka iyo deegaanka. barnaamijka waxaan idinla socodsiinayay idina soo diyaariyay anigoo Cabdirasaaq Kaafiya. intaan barnaamij la mid ah ku kulmi doono dhammaantan bahda wakaalada warbaahinta oo isku duuban waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo amaan Allah. Somali ba tamar yaro inta nadibu in tarankan anta la kusine warho